بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaan halkan usoo istaagay in aan ka hadlo arinta go'aanka taariikhiga ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya uu gaaray. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo baarlamaanka Soomaaliyeed sida mas'uuliyadda ay ku jirto, sida hufnaanta iyo caddeysnaanta ay ku jirto maanta ay u dhacday labadan birin ay u soo socotay hawshii baarlamaanka ka mid ahayday waxyaabaha laga rajeeyo institutionska ama hay'adaha dawladnimo khaasatan kuwa dimuqraadiga ah sida ay u dhaqmaan. taariikhda Soomaaliya marar badan oo baarlamaanku go'aano xasaasi ah ay soo mareen waa jirtay, laakiin waan wada garanaynaa sidaan oo kale uma ayan dhicin. marka xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya waan u hambalyeynaya sida wanaagsan ee mas'uuliyadda ay ku jirto ee hawsha baarlamaanka ee waajibaadka dastuuriga ay saarnay ay u guteen. waxaan leeyahay waan ugu hambalyeynaya. sidoo kale waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo guud ahaan guddoonka iyo maamulka baarlamaanka sida dadaalka ku jirto ay u hogaamiyeen processkaas maalmihii la soo dhaafay uu socday, sida hufnaanta leh ee aan mugmugdiga iyo maxaan ku raahdaa madmadowga aan lahayn, sida maxaan ku raahdaa ilaalinta qawaaniinta u degan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ugu adkaysteen. ayaguna waxaan leeyahay hambalyo, shaqo aad u wanaagsan aad qabateen. waxaadna muujiseen dalku inuu leeyahay baarlamaan lagu kalsoonaan karo oo howlihiisana si hufan u qabsan karo, u gudan karo waajibkiisa dastuuriga ah. marka ayaguna waan u hambalyeynayaa guddoonka iyo maamulka baarlamaanka. wixii dhacay shalay iyo maanta taariikhda cusub ee Soomaalida cusub meel bog aad iyo aad u cad ayay ka geli doontaa. waxaan rajaynaynaa haddii wixii ka dambeeyay inay sidaa ku dhamaato, inay yaraadaan khilaafyada dawladda dhexdeeda ka imaanayo ama hay'adaha dastuuriga ka imaanayo, iyo haddii ayba dhacdana in maxaan ku raahdaa sida dastuurka iyo nidaamku qabo ee tooska ah ee hay'adaheena dhexdeena ah ay ku dhamaato, oo aan marna khilaafaadkeena aan loo qaadin dibadda iyo dalal kale iyo walaalo kale aan loo qaadin ee aan annagu ka ekaano kana adkaano xalinta maxaan ku raahdaa mashaakilaadkeena hoose ee gudaha ah. marka arrintaasi waxay ahayd runtii maanta tallaabo taariikhi ah oo la qaaday oo aad u habboon. waxaan sidoo kale rabaa fursaddan inaan uga faa'iideysto oo aan u mahad celiyo ra'iisul wasaaraha sii baxaya iyo xukuumaddiisa oo aan leeyahay muddadii aad soo joogteen dalka waxbaad u qabateen. dalka kama ayan dhicin fashil laga kala cararo oo xukuumadeed ma ayan jirin. wax badan oo aad iyo aad u tiro badan ayaa muddadii sanadka ahayday soo qabsoomay. wax badan oo aad iyo aad u tiro badan oo gudo iyo dibad leh oo maantana dadka Soomaaliyeed maanta la joogo ay ku faani karaan ayaa soo qabsoomay. maalintii ay mas'uuliyadda qabanayeen iyo maanta Soomaaliya way kala duwan tahay, laakiin haddana xuduudda horumarku meelna kuma eka. waxaa la yiraahdaa xuduudda ilaa iyo cirka ayay jirtaa oo afka qalaad waa tii lagu dhahay sky is the limit. wax kastoo wanaag oo la qabtaahay meel ka sii wanaagsan oo loo qaban karo isi ka sii wanaagsan oo loo qaban karo ay jirta. dadaalka iyo waxaana waxay ku salaysan yihiin wixii la qabtay wax ka sii wanaagsan in la qabto, laakiin wixii la soo qabtay in la dumiyo ama ay halaabaan ama ay hoos u dhacaan marna kuma jirin. marka prime ministerka xafiiska banaynaya iyo xukuumaddiisaba waxaan leeyahay waxaad qabatay shaqo wanaagsan. ayaguna waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin. xilligii adkaa ee Soomaaliya aad madaxda iyo mas'uuliyadda dhinaca xukuumadda aad u hayseen iyo wixii aad qabateenba. waxaa kaloo rabaa dadka Soomaaliyeed inaan ayaguna aan u sheego ugu hambalyeeyo uguna bishaareeyo inaanay dhibaato dhacaynin. meesha maanta dalka marayahay wax ka sii wanaagsan iyo meel ka sii wanaagsan ayaan hiigsanaynaa. taas ayaanan muxuu ahay ku shaqayn doonaa oo gaari doonaa. wixii noo soo qabsoomay wax kaloo ka sii qurux badan baan ku sii duldhisi doonaa, horeyna waan u socon doonaa. waxaan mar kale dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin aan leeyahay ku kalsoonaada madaxda dalka, ku kalsoonaada hay'adaha dastuuriga ee dalka uu leeyahay. haddii aad idinku kalsoonidiina iyo garab istaagidiina buuxda ay helaan way dhiiranayaan, waana sii soconayaan, wax fiicanna way ku sii tallaabsanayaan haddii alla yiraahdo. waxaan aad iyo aad u rajaynayaa Soomaaliya inaanay dib u noqon doonin haddii alla yiraahdo ay hore u sii socon doonto.
إن لك الرأي دون هذا إلا إسخلافه معها محانك إرادة وحعبه يوحن أنت بمعها سنة نرشة كمتاي إن لك الرأي دون هذا هدي لك الرأي دون شاه سنوحو مغضى مر والبا إنه خلاف هاي لكن ماشى ضبطه أو دبعته يوناق أي كتيران وخلاف كاس يكلا دونان شهس سيد الله حليه وحن لا هاي همبليو برلمان كجمهورية الفدرال كالصومالية سيدا وحليه سيدا ما أنت جوانك وكسر بحي سيدا إذا كان هدي عن لهينا والله وضع احترام لها جوانك برلمان كجار أيام مر والبنا متك كما دمبيسته ودستوري أو الجودة عن عسيها ونقول لها وحن لا هاي مركلة هي مركلة همبليو صوماليا انت لنولي هو الصعدة خلافات يكلا رأي دوانان شوي إيمانيسا لكن وحان ذاتك صوماليد أبالان قاضية أنيقو مدحوينها جمهورية فدرال كأه خلافك يحلين تمشكلة لها الصومالية إنان خاصة دولة الصومالية تحديدا كتراهي إنان مرنا دبد اللو قاد الدولة خلافاتك دولة تحديدا كي ماذا مستوى كستها هذا أما هي أذها واوين دستوري هذا أما حكومة تحديدا هذا mar walba waxaa lagu xalinayaa nidaamka iyo shuruucda dalka u yaalo waxaana lagu xalinayaa dalka gudihiisa dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay kalsoonidaas qaba inaan qabsan karno guuleysan karnana waad aragteen hadda iyo wixii ka dambeeyana Ilaahay idinkiisa sidaas un baan u dhaqmi doonaa una guuleysan doonaa mar kale waad mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa Soomaaliya guul iyo wanaag iyo dawlad fiican iyo dawlad wanaagsan intaba inay u timaado taageerada iyo garab istaagida shacabka Soomaaliyeedna waan codsanaynaa meel kasto ay joogan aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ay laba su'aalo tay idaacada Ameerika mudane madaxweyne خلاص ay waa ma ka mudane madaxweyne inkastoo la yiri su'aalahan hal joojiyay laakiin waa dhowr su'aalo beeshiisa geli doonta insha Allah مدن مدحيني حكومتي رئيس الوزراء ساعد ومركعي برنامج مانتي حلف وكسورين ويجي أغلبية أي كل خلاف لبدينا كشيء أيين كسر أرنتان مدن يالبنا وحي قوان إن مدحتويد اللي كسر أجريك جديدة رئيس الوزراء محا أرنتان في الجواب له وما سنتهاي عنيجي إيو عبد فارح شردون ساعد برايم مينستر كيهورة وح خلافة أو شخصي أو نور بحياة مجران شلنا صاحبان هين ما أنت صاحبان هاي أنت برلمانك وفديو عديني تلفنا كودا هدليني أنت أنقلنا مالمها شقلنا إسعتمان والبوحي شقان وأنقل ميني وحي محان كلام مركب وحن لا يساعد وخلافه أو شخصي مجران وخلافه أو شخصي مجران وحن كل الرأي دواناني وحي هذا ماملك الدولة بمرة لكن وحن لا هاي شلنا صاحبان هين ما أنت صاحبان هاي برين صاحبان سي أحد دونا ولبا مرة إذا عدوا عن كشاجي شخصية دي سقف عن السكيلين أدي قالي وقيمة بدن واي لكن حول هدي جرتو والوك الرأي دوانا كره. طيب من هذا السؤال الأصل في الفيديو خلاص هذه الرجل الوزراء يصدق احتمال واحد غير مصر إن حق سوريا وبالصوت وقصر واحد اليوم أنت لا تريد مكتوب على الورد أنت تكتب. أنا إيو برايم مينستر كا aniga asiga muddo dheer oo dheer ayaan wada xaajood arintan uga jirnay aan rabaa inaan si cad aan dadka Soomaaliyeed meel walba joogan ugu sheego waa ku kala ra'yi duwanaanay laakiin anigu ma qabo in oo dagaal yaani iyo colaad iyo maxaan ku raada khilaaf dastuuri midna aan u jirin waxa maanta dhacaya dastuuri ahayaan qaba anigu waxa kale oo ka soo haray oo madaxweynaha prime ministerka awoodda ka qaaday iyo wax jira maaha anigu dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee maanta jiraahi wuxuu isiinayaa awoodda ah inaan prime minister soo magacaabo laakiin xilka prime ministernimada waxa lagu weyn karo kamid ma aha madaxweynaha ka qaaday intaasna waan garadsanahay mana oranin anigu mana dhihin xilkan ka qaaday iyo xilkan ka qaadaya midna waan aqaana awoodeyda ku salaysan dastuurka dhaxdiisa prime ministerka inuu xilka ka dagaahi iyo waxa jiraahi waxay ahayd arinta ku saabsan reformka dib u qaabaynta iyo dib u habaynta dawladdeennuna maanta meesha ay joogto minute kasta iyo daqiiqad kasta waa inaan ku fikirnaa dib u qaabayn iyo dib u habayn iyo si qurxin mar walba wixii aan hore ugu sii socon lahayn laakiin cadaawad shakhsi ama jirto nacayb shakhsi ama jiro khilaaf shakhsi ama jiro nidaamkaas haddii aan ku kala aragti duwanaanana dastuurku wuxuu nafarayay waxay ahayday
meeshaas inay go'aan ka gaarto ayadii ayaana prime ministerka asigaa ku dhawaaqay inaan kala ra'yi duwanaanay oon maamulka ku kala ra'yi duwanaanay asaas sheegay asaa cadeeyay cadeynta uu cadeeyay awgeed ayaa baarlamaanku wuxuu ku khasboonaaday inuu arinta soo farageliyo marka laakiin prime ministerka intii aanu sheegin oo qiraafka inuu jiro aanu cadeyn ka baarlamaanku arintan ma gaarsiisneen mana ogeyn laakiin mar haddii ay soo baxday oo prime ministerka jamhuuriyadda uu ku dhawaaqay inaan aniga asiga kala ra'yi duwanahay oo arrimaha reformka iyo dib u qaabaynta dawladda aan ku kala ra'yi duwanahay baarlamaanku wuu ku khasboonaaday inuu soo dhaxgalo sidaasayna ahayd sidoo ku soo dhaxgalay baarlamaanka aanay ku timiday aynay ku dhamaatay hadii alla yiraahdo tan ugu dambaysa طبعا واجب دستوري وايه ان رئيس الوزراء سو مغعابو رئيس الوزراء حكومه سو dhiso رئيس الوزراء سو مغعابay baarlamaanka hortago kalsooni oo weydiisto xukuumadda iyo barnaamijkeeda hadana baarlamaanka la horgeeyo ayaduna xukuumadda ilaa habka dastuuriga ah isdaba yaalahay waa sidaas waqtiga ugu dhow ee ugu dhaqsiya badan insha Allah way dhacaysaa inta ka horeysana xukuumaddii hore iyo prime ministerkii hore ayaga mas'uuliyadda sii haynay aad iyo aad u mahadsantiin